aan tilmaamaya in la yiraahdo mas'ala dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya kamida hadaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaarsiinaysaa yuhuud la yiraahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nabiyullaahi muhammad oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatul kalaam in noqotay xorriyatul qawl وما حتى كان حرية القول نقوم ويدي وأمرك اللي قدونه سومالي ما حي أورين شرتي لا تشيفيانا بنان وذات بقول تاجي بي سومالي أورين شري مركا الله ربنا وحال أورين شري لا تشيفيانا بنان ولا تشيفيانا بنان سيدا وطالة ميديا هي برشدة هي وحردمي وحي أنا يدون إن عندها ويكلابتا نكرر قلبي وحقيستا ملفkiisa la baadhayo maalinuu dhakhtar ma tagay dad buu leeyahay wallah bari buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalan haduu wax dilo waa muslim terrorist haduu waalan uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma eegto idan walla jiifiyaana banaan bay leenahay laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu mu'taqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nabi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nabigii miyaadeed ma doodi karaysay maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nabigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yara dhafoorada xiirtay oo aad dhafoorada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yaadna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad siladayaan dadku ku garanay saxiixa maaha yaa dadku ku garanay koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nabi maxamed ku weynaado suurtagal maaha markaynu inagu nabi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynayn oo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diray badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam hitler markaa micyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo filosofi inaad dejiso iyo awoodda hoggaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba brofesor raw baa markuu masaladaa hitler ka soo qaatay wuxuu leeyahay haddaba saddexduu hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaannu haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qudha isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuululislaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hoggaamin la yimi khatiib mufawahoo dadka wuxuu rabo gaadhsiinayay buu leeyahay waana buu leeyahay fii shakhsi rasuuli lislaami ra'a alcaalamu andar daahira calaa wajhi اlardi buu yidhi qofka islaamka hoggaaminaya ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan buu yidhi andar daahira waa muuqaalka ugu dhif iyo naadirsan ee dhulka korkiisa lagu arkay ee dhiig iyo laf ka samaysan buu leeyahay saddexdaas shay wada wata yani filosofkani wuxuu leeyahay qof dhiig iyo laf ka samaysan oo bini aadama oo saddexdaas shay isku wata maxamed baanu aragnay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidalik ba wuxuu tilmaamayaa buuggaygan markaan qorayo buu yidhi waxa igu adkaatay inaan nebi moxamed oo dhan ka warramo buu yidhi laakiin waxaa laga yaabaa buu yidhi waxoogaa sawirraa inaan idinka siiyo uun muxamedkii nebiga ahaa muxamedkii dagaalyahanka ahaa muxamedkii rajululacmaalka businessmanka ahaa muxamedkii rajulu siyaasiga ahaa
muxamedkii khatiibka ahaa, muxamedkii muslix ijtimaaciga ahaa, muxamedkii agoontu ay ku soo hoyan jirtay, muxamedkii addoommaha xorayn jiray, muxamedkii dumarka xoreeyey, muxamedkii qaadiga noqday. muxamedkaasi buu leeyahay taariikhihiisa wax yaroo ka mida baan idiin sheegayaa buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nebi maxamedka naadirkaa kama warrami karayo. yacni wuxuu ka cudur daaranayaa inaanu soo wada bandhigi karin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jawaanib alcadama qaybaha weyne uu leeyahay. ayuha alaxiba, outstandingka resultska ka soo baxay, nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay.